أوجدكيو تلماما هداني نتصالينو تينتيو تيكسي بودلان تابقات نغيي تينتيو تيكسي بودلان تابقات نغيي تبتا تاسن إيو قوشا وآلو ترتميا كلامي كان قد نيبا قليا تاريخ حكومتنا تاغيرو آن اسكرب تاغنو تفراروغ لما دوني توغا ودا يشا تبتا تاسن إيو قوشا وآلو ترتميا كلامي كان قد نيبا قليا تاريخ حكومتنا تاغيرو آن اسكرب تاغنو تفراروغ لما دوني توغا ودا يشا أوجدكيو تلماما هداني نتصالينو تينتيو تيكسي بودلان تابقات نغيي تينتيو تيكسي runtii farxad gaar ah ayay ii tahay in mashruucan oo labadii sano u dambeysay waqti badan aan gelinay inuu maanta daah furmaayo shaqadiisina ay bilaabanayso wadadan waxay u tahay dawladda Puntland macna gaar ah maxaa yeelay gobolada aan wadooyinka laamiga lahayn ahmiyad gaar ay noo lahaayeen oo uu ka mid yahay gobolkan Highland waad ogtihiin oo gobolka Sanaag wadda ku socota oo meel fiican maraysa gobolka Highlandna inay maanta bilaabato farxad gaar ah noo tahay waxa u dhinaanaysa Puntland gobolka Gardafu iyo gobolka Cayn oo wali iyaguna aanan wadooyin laami ah aan gaarsiisnayn wadadan inkastoo aysan wali dadku waxay u yaqaanaan laamiga aynan wali mashruucaasi uusan ka dhiman yahay laakiin waxaan rabaa maanta inaan halka sheego inta hadda fulaysa waa wadda aan laamiga ka dhicin labada mashruuc ay ka dhiman oo ah in la gaarsiiyo Xingalool iyo in laamiga la saaro labadooduna maanta aan dhagax dhigayna insha Allah shirkadaha nama guurayaan ilaa ay dhameystiraan hadii ilaahay dawlad ahaan iyo shacab ahaan ayaa ballantaas qaadi doona wixii caalamka noogu yimaado waa wax shaqo dawladda loo qabanayo laakiin waa shaqo dawladdu leedahay marka dawladdu cid kasta oo ka caawinaysa ama ha ahaato dakhligeeda ama ha ahaato wadamada iyo hay'adaha iyo sanduuqyada bixiya taageerada intaba waan la kaashan doonaa iyo dadkeena jooga gudaha iyo kuwa dibadda jiraba waad ogtihiin mashaariic aan waxba lagu darsan baa Puntland wada oo ah dayactirka wadadii isku xiraysay Boosaaso ilaa Gaalkacyo waxaad ogtihiin wadada hadda baran ku socota dadka isku tashaday dawladda tanna kama duwanaan doonta hadii ilaahay way gaaraysaa hadii ilaahay inta ka dhiman Xingalool laamiguna wuu fuuli doonaa markaasna gobolkan wuxuu noqon doonaa gobol la jaan qaado gobolada kale oo la mid ah oo u soo dhawaado adeegyada oo ganacsiga kor u qaada oo arrimaha bulshada kor u qaada oo aan rajaynayna nolosha dadka deegaankan inay wax badan ka bedeli doonto wadooyinku waa meelaha bini'aadamka dhaqaalihiisa iyo noloshiisa kor u qaada waana rajaynaynaa arrintaas inay hirgasho waxaan uga mahad celinayaa suldaanka iyo dadka deegaanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda ahmiyadda gaarka ay mar walba siinayeen iyo muddada dheer oo inta aan xafiiska joogay lagu celcelinayay sidii mashruucan u hirgeli lahaa waxa ilaahay mahadiisa maanta wadda kasta ha soo mare inuu maanta hirgalay African Development Bank waxa weeye lacagaha deeq bixiyaasha Soomaaliya ugu talagalaana soo mara waayo Soomaaliya wali bangiyadeedu waa la aamin lahayn inay toos ugu soo dhacaan facilities kaas ay noo qabanaysaa laakiin inta iyadu bangi ahaan u bixin lahayd waa ka sugeynaa sidaan ka warqabo tan waa la soo mariyay wili
hay-adda dawladda iyo shirkadaha toos looba siinaa weli seef jaldaren baa la soo maraa iyadoo ruuxaddeeda waa caqabadaha jira oo mashruuca caqabadaha ku ah marka waxaan rajaynaynaa dawladdan markii la arko mashaariicda iyadoo ay fulisay oo la arkay sida ay u kormeertay iyo tayadiisa waxaan u malaynayaa dayactirka ilaa indhihiin ku soo aragteen waxaan rajaynayaa wixii hadda ka dambeeyay in hay-adda waddooyinka iyo shirkadaha Puntland ay noqon doonaan shirkado la aamino oo professional ah oo wixii loo dira ka soo baxay kuwa hadda gacanta ku haya mashaariicda waa la tijaabiyey kuwa hadda dhisi doonana imtixaan bay u tahay insha Allah tijaabadooda waa arki doonaa haddii ilaahaydno shirkadihii la iska siin jiro la dhihi jiray dhisa oo hadhow la musuqmaasuqi jiray tan ma jirto waxay qabtaan unbaa wax lagu siin doonaa marka iyaga naftirkooda waa habkaas waxaan rajaynayaa oo hay-addii lacagta soo maraysay iyo dawladdiiba oo isdaba socda ayaa kormeeri doona waxaan rajaynayaa mashruuca kan ahmiyadda uu leeyahay ayaan halka u imid in la isla gartana waa muhiim inuu ahmiyaddaa leeyahay maxaa yeelay gobolkan waxaan rajaynaynaa inuu isbeddel weyn ku dhaco waxaan markhaanti ka kacayaa safarkii ka horreeyey oo aan ku imid isbeddelkii ka dhacay muddadii intaa u dhaxaysay safarkaanna waxaan rajaynayaa inuu isbeddel kale ka dhici doono dawladdu dadkaana doortay waajibkeeda gudanaysaa waxaan rajaynaynaa waajibkeena inuu ilaahay noo fududeeyo dadweynaha kaalintoodii ma gabin oo mar walba runtii dadka reer Puntland dad aad u fiican weeye oo jecel horumarka oo jecel dawladnimada oo jecel inay gacan ka geystaan gacan badan oo ballaaranna way ka geystaan waxaan rajaynaynaa in meelaha kale looga dayan doono Soomaaliya mashaariicda ilaa iyo hadda ama bangiga adduunka oo World Bank mashaariicda fulinay ama sida hadda ciiga uu sheegay mashaariicdii African Development Bank fulinay meelaha success-ka ah oo sida fiican u fuleen oo u bilowdeen ay Puntland ka mid tahay taana waxa keenaya nidaamka dawladnimada oo aan caqabadaha ka ilaalisa tashiilaad wixii ay u baahan yihiin inay fuliyaan caqabad kuma noqon muddadii hadda aan joogno taas waxay keentay inay mashaariicdu degdegaan mashaariicdu waxay la daahi jirtay caqabado badan baa hor ooli jiray sida u fuli lahaayeen inta wax laga dhex raadinayo annaga mashaariicdu waxaan rabnaa in si toos loo fuliyo iyadoo oonan cid dulaala ay cid kale oo malaala ay dhexda ka gelin waxaa la rabaa mashruucu inuu toos laqaalihiisu u taabto dadka beneficiary-ga ah oo lahaa waana rajaynaynaa in Soomaalidu ay hadda ka soo daashay mashaariic la dhaho waa la musuqmaasuq maxaa yeelay ninka musuqmaasuqa isagaas musuqmaasuqay caruurtiisa iyo ubadkiisa iyo mustaqbalkiisa buu waxyeelaya marka uu mashruuc loogu talagalay in dadku weynuhu ka faa'iideystaan oo si gaar ah u leexsado isna ka faa'iidi maayo dadkiina waa uu ka cunaq qabatay marka waxaan rajaynayaa ilaalinta mashruucan dadweynuhu dhan inay ka qayb qaataan insha Allah hay'adaha khusayso oo wasaaradda hawlaha guud iyo hay'adda wadooyinka iyo cid kasta oo shaqo ku leh ama gobolka ha ahaato ama degmooyinka ha ahaato ay ku imanayaan iyo kuwa ay maaragtay waliba gobolka halka saldhigga oo ah gobolka Highland kormeer joogta in lagu sameeyaan rajayn doona haddii la haydno waqti dheer baa la joogay way mudan tahay in saacadaha la joogo inta jecleed inay ka hadashaan runtii anigu inaan dhageysto waaba jeclaa dadka hadalkooda laakiin dadka qaybtiisa waxa laga yaabaa inay daaleen khaasatan gabdhihii marka aad baan u rajaynayaa inay mashruucan uu farxad iyo guul noogu dhammaado waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa nabadgelyada inuu noo siyaadiyo in ilaahay abaarta iyo colaadaha uu naga qaado in ilaahay uu roob raxmad ummaddan siiyo dadkana waxay ku dhaqan yihiin waa xoolo waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa raxmaddiisa inay noo soo degdegto amniga aan haysanno ilaahay noo siyaadiyo danaheennana dad garta aan noqonno ilaahay idankiisa aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum